xidiga qadka dhexe kooxda Arsenal Dani Ceballos ayaa albaabada u furay inuu si toos ah ugu biiro kooxda Arsenal. xidigan ayaa laakiin sheegay inuu u baahan yahay inuu helo boos joogto ah. xidigan oo qaab amaah ku joogay garoonka Fly Emirates Stadium oo ay ku ciyaarto naadiga Arsenal. xidiga reer Spain ayaa kaga soo biiray qaab amaah kooxda Real Madrid naadiga Arsenal. hadda waxaa la sheegayaa inuu albaabada u furayo in naadiga Arsenal ay ku qaadan doonto si xur ah oo ay ku doonayso heshiiska xidiga Dani Ceballos. wararka ayaa sheegaya in oo xidigaas albaabada u furayo. markana Pogba Rashford oo ka hadlayo kulamada ay ciyaari doonaan sidoo kale inta sida looga yaabo inay ugu soo muuqdaan saf ciyaareedkeeda maadaama xidigahan ay hadii aynu eegno tababaraha kooxda RB Leipzig ayaa ka hadlay wada hadalada sheegaya in xidigiisa Timo Werner uu ka tagi doono kooxda kubadda cagta ee RB Leipzig. waxaana uu sheegay in Blues ay ku dhowdahay inay la soo saxiixato iyadoo kooxda Liverpool ay doonaysay, laakiin waxuu sheegayaa inay jiraan dadaalo ay isku dayayaan inay ku celiyaan laacibkaasi. xidigan oo qaab ciyaareed aad u wanaagsan soo bandhiga asaga oo sidoo kale intana soo jiita jamaahiirta kooxda kubadda cagta ee RB Leipzig. kooxda Man United ayaa lagu soo waramayaa in ay dalab rasmi ah ka gudbisay saxiixa xidiga Barcelona ee Ansu Fati ayaa la leeyahay iyaga oo Ousmane Dembele ka hadhay. waxaa la sheegayaa in ay hadda doonayso xidigaasi. Ansu Fati oo 17 sano jir ah ayay doonaysaa inay la soo saxiixato kooxda kubadda cagta Manchester United, laakiin ilwareedyada ayaa intaas ku daraya in kooxda Barcelona ay xagaagan doonaysa in xidiga ay keento garoonka Camp Nou iyadoo oo fasaxi doonto xidiga kale oo aad u wanaagsan. Man United ayaa hadda lagu soo waramayaa inay doonayso Ansu Fati in ay la soo wareegto. kooxda Liverpool ayaa lagu soo waramayaa in ay ka walwalsan tahay taam ahaanshaha xidigaha Mohamed Salah, Andre Robertson iyo Georginio Wijnaldum ka hor kulanka adag ee Everton. kooxda Liverpool ayaa dib u bilaaban doonta horyaalka Premier League. kulanka adag ee ay la ciyaari doonto kooxda Everton kulankaasi ayaa ku guuleysan doonaan horyaalka Premier League. si kastaba ha ahaatee waxaa wali jirta 3 xidig oo muhiim ah sida ay sheegayaan wararka in ay ka cabsi qabaan inay seegaan. xidiga Mohamed Salah, Andre Robertson iyo Georginio Wijnaldum ayaa dhammaystiran qaab ciyaareedkooda ka yar isaga oo sidoo kale la sheegaya in ay cabsi ka qabto naadiga Liverpool in xidigaha ay ciyaari waayaan kulankaasi maadaama kulanka uu yahay kulanka ay wada fiirsanayaan kooxda kubadda cagta ee Liverpool. sheekooyinka kale hadii aynu eegno xidigii hore kooxda Manchester United Eden Hazard ayaa la sheegayaa in uu ka hadlay in xidigaha kala ah Marcus Rashford, Anthony Martial, Paul Pogba. wuxuuna sheegay Manchester United ay haysato xidiga tayadooda ay sareyso balse ay u baahan tahay kaliya in khibrad iyo isku shaandhayn lagu sameeyo. wuxuu sheegay Manchester United inay u baahan tahay kaliya in lagu sameeyo isku shaandhayn iyo sidoo kale khibrad aad u badan. kooxda Manchester United ayaa loo sheegay inay dhamaystirto xidiga Van de Beek kaasoo ay aad u doonayso. Van de Beek ayaa la xiriirinaya kooxda kubadda cagta Manchester United iyadoo ilwareedyada ay sheegayaan in laacibkaasi uu doonayo inuu ka tago kooxda kubadda cagta Ajax Amsterdam. xidigan ayaa waxaa ku soo biirtay kooxda kubadda cagta Real Madrid oo xiiseynaysa dalabka xidigaasi lagu fasaxayo. Van de Beek ayaa ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Ajax Amsterdam. laacibkan oo qaab ciyaareed aad u wanaagsan soo bandhigay ayaa la sheegayaa in uu hadda ku dhow yahay inuu ka tago kooxda kubadda cagta ee Ajax Amsterdam. xidigan ayaa la xiriirinayaa kooxaha ugu waaweyn horyaalada Yurub iyada oo ay jirto kooxo doonaya
laakiin kooxda kubadda cagta Real ayaa loo sheegayaa in ay Manchester United ay dhamaystirto xidigaasi. haddaba waxaan eegi doonaa wararka kale aadka xiisada badan leh. xidigii hore kooxda Liverpool Michael Owen ayaa sheegay in Liverpool ka dalban doonto dhamaystirka xidiga Timo Werner. Michael Owen ayaa Liverpool u sheegaya in 3 xidig oo weerar ah ugu soo kordhiso si ay qaab ciyaareedka wax badan ugu bedelaan. wuxuu Michael Owen sheegayaa in Timo Werner ay Liverpool ku dhaqaaqdo si ay u dhamaystirto xidiga oo 23 sano jir ah ayaa dhaliyay 25 gool oo u ciyaaray Bundesliga xilli ciyaareedkan. waxaa la leeyahay waxa aad u doonaysa naadiga Liverpool oo ku dhow inay xidigaasi la soo saxiixato. Michael Owen ayaa Liverpool u sheegay in 3 xidig ay kaysato oo kala ah Timo Werner, Kylian Mbappe iyo sidoo kale xidiga lagu magacaabo waa Adam Traore. Liverpool ayaa loogu baahan yahay kaliya 50 milyan oo lagu burburiyo heshiiska Timo Werner. wuxuuna u sheegay in Liverpool ay sameyso lacagahaasi in ay bixiso sidii ay u heli lahayd laacibintaasi kala duwan oo inta badan la sheegayo in la xiriirin inay ka tagayaan kooxahooda. wuxuuna sheegay in Liverpool ay u baahan tahay inay bixiso lacagahaasi oo ay ku qarash gareynayso xidigaha. sheekooyinka kale aadka loo hadalhayo waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa sidoo kale danaynaysa inay sameyso saxiixyo kala duwan. waxaana la sheegayaa in ay kooxda Barca aad u xiiseynayso inay la soo saxiixato xidiga aad u waaweyn iyada oo fasixi doonto laacibinta ximika ku sugan garoonka Camp Nou qaarkood. naadiga kooxda kubadda cagta Barca ayaa laga yaabaa Ousmane Dembele, Ansu Fati iyo xidiga kale inay ka tagaan dhamaadka xilli ciyaareedkan iyada oo ay doonayaan xidigahaasi inay sameeyaan hawagidisho oo ay ku aadayaan horyaalada kala duwan. haddii aynu eegno waqtiga la dhamaystirayo racfaankii ay Manchester City ka qaadanayso xilli ciyaareedkan waa soo eegnikaasi. haddii aynu eegno sheekooyinka kale ee aadka loo hadalhaya ayaa waxaa ka mid ah xidiga kala duwan ayaa jiro oo doonaya inay ka tagaan kooxahooda. Chelsea waxay ku dhawdahay inay dhamaystirto heshiiska Timo Werner. sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa loo sheegay in Nicolas Pepe isbedel ay ku sameyso si uu xidigaasi ula qabsado maslaxadda Fly Emirates Stadium oo ay ku ciyaarto naadiga Arsenal. xidigan ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed aad u wanaagsan laakiin waxa uu fahmi la'yahay falsafad ciyaareedka naadiga kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Mikel Arteta ayaa sidoo kale doonaya xagaagan inuu sameeyo qandaraasyo lama filaan ah kaasi uu ku doonayo inuu ku soo qaato xidiga kala duwan.